masaajidda marka inaan la imaanin asal ahaanba oo guryaha lagu dukado ruqsa ayaa loo haystaa arrintaas inay ogaateen waayo muslimiintu marka cuduradan oo kale ay yimaadeen weligood ma dhihin masaajidda la xiran laakiin waa laga tigi jiray masaajidda buuraha iyo guryaha iyo lagu kala yaaci jiray masjidku marka automatically qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 ku haraan laakiin jamaacadii faraha badneed meesha inay ka baxdaa la rabaa oo xaaladahan intay jiraan meesha aysan imaanin kow midda labaad waxa waaye oo iyadana waajib ah dadka da'doodu ay weyn tahay iyo dadka cuduradan u nugul sida dadka neefta qaba ama sokorta qaba ama wadna xanuunka qaba ama sanbaba xanuunka qaba ama kaliya xanuunka qaba cudurada khatarta oo dhan oo la noolaado waxa waajib ku ah inaysan iman masaajid sidaba waajib ku tahay yani kuwan ma ahan ruqsad haystaan kuwa kale laakiin kuwan waajib ku tahay inaysan imaanin culimaduna wax maxay yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wala tulqu bi yadikum tahluka ayaguna khatar bay baxa yani ay wajahayaan ummadana khatar bay wajihinayaan marka ayagana inay guriyahooda joogaan waaye qodobka saddexaadna waxa waaye in masaajidda dadka imaanaya la kala fogeeyo oo aysan istaaban waxaan anagu xadidnay 1 mitir markay ugu yartahay inay kala fogaadaan diintuna waa u banaynaysaa marka shalay hadii la lahay istawi wa taqarubu isku dhawaada oo sinma maanta waxa la leeyahay tabaacadu kala fogaada faraaqad bixiya waa in maarta banaana u idin dhaxeeyo maxaa yeelay caafimaadka iyo daruuridiisa keenay masaajidda jamaacada waxa weeyaan iska daba imaanaysa oo fawj u imaanaysa iyo dadka sunnada ku dukanaya dadka seexanaya dadka masaajidda ku sheekeynaya iyo duruusti la akhrinayo waxa soo dhan waa in la joojiya darsi lagama akhri karo aan ahayn wacyigelinta cuduradan ku saabsan ama soonka dadka in ahkaamtiisa loo sheego labada xilligooda la joogaa duruusta dhan waa in la joojiya kow laba waa in masjidka sunnooyinka laga tagaa oo aan lagu sunnaysan oo guriga ku khayr banta si Sheekh Maxamed sheegay guriga la aadaa saddex masjidka hadii jamaacada koobaad ay ku dukato oo intii markii la adimay la aqimo joogta ay ku dukato in hore laga xiraa qof aan mask face aan wadan oo aan maskara wajigiisa soo saaran balka aniga ii saaran oo kaleeto inuu masaajidka soo gelin maxaa yeelay caafimaadka ku jira waliba ciidamada amniga iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa go'aankaas dawladda inay si dhab u fuliyaan in la yiraahdo walaalo ama soo xiranaysa ma guriga ku duko iska tag oo laga hor istaago masaajidka laanahu caafimaadka ku jira culimaduna go'aan ku gaarto kulligood